السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما أنت وحان إذن لو ذاك يا حديث كسو أروري النبي صلى الله عليه وسلم وسوري أنس بن مالك وأها خادمك رسولك صلى الله عليه وسلم. حديث كان وحصو صاري ابن ماجه. حديثك وحو إنغالها الله يا إنا نقنه dad wanaaga furo xumaantana xiro. xadiisku wuxuu leeyahay sidatan: can Anas bin Malik radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam inna min annaasi naasan mafaatiixan lilkhayr makhaaliiqan lishar wa inna min annaas naasan mafaatiixan lishar makhaaliiqan lilkhayr fatuuba liman jacalahu الله مفاتيح الخير على يده وويل لمن جعله الله مفاتيح الشر على يده. حديثك وحوليه هي سدة أنس بن مالك الله كرن نخده وحوير النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ددك وحاكمد ناسا ددبا كمد أو مفاتيحا للخير فرياش خيرك وناقبي فران مخاليقا للشر shartan waa xiraan oo Allah subxaanahu wa ta'ala daraadood buu shar socotay ku xiraa. wa inna min annaas dadka waxaa kamid ah naasan dad baa kamid ah oo mafaatiixan lishar oo furayaasha sharta bay furaan, sharta bay faafiyaan, sharta bay sii wadaan. wa miqlaaqan oo ahna makhaaliiqan lilkhayr khayrkana xiro. marka rasuulku wuxuu leeyahay fatuuba wuxuu wanaag iyo khayr u sugnaaday liman ruuxi jacalahu Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka yeelo mafaatiixan khayr furaha khayrka calaa yadihi gacantiisuna Allah subxaanahu wa ta'ala khayr ku furo, qofkaas buu wanaag u sugnaaday. halaag iyo hoogn wuxuu u sugnaaday wa weylun halaag iyo hoogn wuxuu u sugnaaday liman jacalahu Allah qofku uu Allah subxaanahu wa ta'ala ka dhiga mafaatiixa shar furaha sharta calaa yadihi gacantiisa uu noqdo qof sharta ku furana, qofkaas halaag ba u sugnaaday. marka Allah subxaanahu wa ta'ala wanaaga hana waafajiyo, hanaga yeelo kuwa wanaaga furo shartana xiro. Allah subxaanahu wa ta'ala nagama yeelo kuwa wanaaga xiro shartana furo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagama yeelo. xadiiskaas baan jeclaystay maanta inaan idin la wadaago. الله سبحانه وتعالى وناقهنا وفجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.